عليكم أصحابتنا كسو دوادا channelka ومهتنتهين إننا نصوب بوقتين maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago fitamiinaadka caruurta aan u isticmaalo marka way kala duwan yihiin caruurta qaar waxaan isticmaalaa sharoobo caruurta qaar kaniini tablets marka waxay ku xiran tahay da'da ilmaha ku xiran tahay waxa la siinayo so markay yirihiin tablet ma cuni karaan so that's why inay isticmaalaan waa sharoobada so hadda waxaan ka bilaabayaa insha Allah waxa aan isticmaalo haddii ilaa iyo uu ka dhamaanayo videogan sii joogtid waxaan kula wadaagi doonaa waxyaabaha muhiimka u ah inaad ku dooratid vitaminka aad gadanaysid vitamin kasta iska gada ma ahan sababa loo gataa vitaminada qaar loo maleeyo inay fiican yihiin waxyaabo badan ka maqnaan karo vitaminada qaar loo maleeyo inay wax kasta ku jiraan inaa mid kale u gadiday u baahan yihiin so waa ku sharaxi doonaa marka insha Allah halkan waxaan ka bilaabaa hadda vitamin D waxaa loogu talagalay caruurta yaryar markay dhashaan ilaa iyo waxaa ku qoran ilaa 4 sano ilaa 4 sano inaad siisid laakiin way fiican tahay in la iska wado wadamadan deganahay aaday u qabow yihiin dolalka shisheeyo dhan dadka joogo dhan waxaan kula talinaa inay vitamin D qaataan because qorax badan ma aragno especially winter time-ka October ilaa iyo bisha 3 March waa very qabow meelahan aad u qabow yihiin marka waxaa muhiim ah in la qaato vitamin D-ga so hadda waxaan ka hadlayaa meeshan multivitamin baby yaasha sii kartaa ilaa iyo ani waxaan sii ilaa 2 sano ka gaaraan saasa fiican ilaa 2 sano then sharoobada ka dhaafaysaa tabletka u bedelaysaa hadda multivitaminkan oo kale caruurta wuxuu u furaa appetite-ka like in cuntada hadii cuntada diidaan ama caanaha ka diidaan ama waxyaabaha oo ilmaha cuntada ka xiraayo sometimes ilmaha way cunto xun yihiin marka kan oo kale u fiican marka ilka u soo dhalanayo mar waa qanaysan yihiin marba wax le maanta dhan marka insha Allah waxaan rajeynaa inay ka faa'iideysateen marka vitaminkan wuxuu ku fiican yahay waxaa la socdo bakteeriga yarka oo hadda kor ka fujinaya waxaana ku qoran inta milliliter oo u isticmaalaysid da'da ay ku xiran tahay marka babyga markuu yar yahay 2.5 u isticmaalaysaa 2 jeer maalintii marka wax ka weyn yahay 4 jeer maalintii marka ilaa iyo 2.5 milliliter ilaa iyo 15 milliliter waxay ku xiran tahay da'da u isticmaalaysid marka insha Allah tabletkan waxaa loogu talagalay ilmaha 3 sano ka weyn waxa waaye wax kasta ku jiro waxa ugu jiro vitaminka ironka waa wax aad u muhiim ah daalka iyo waa feero so daalka iyo waxaas dhan ay ka ilaalinaya inkasta caruurta la dhahayo oo ilmaha ma daalaan way daalaan of course way daalayaan marka kan boost oo siinaa marka caruurta maaragtay oo xitaa hilibka cunin ama ku dhibtoonaya inay nafaqo fiican ka cunaan tabletkan aad u anfacaa waxaa ku jira vitamin A vitamin D vitamin E waxaa laga rabaa in waxaa jirta laga rabaa inay qaataan maalin kasto marka vitaminkan uu dhameystiran yahay vitaminada qaar uma dhamaystirna marka tabletkan hadda vitamin D oo kale uu wada dhameystiran yahay waxaa ku qoran 400 international units hadda midkaan hadda soo qaadayo waa ilmaha yaraa loogu talagalay 2 sano jiro oo 3 gaarin marka hadda vitaminkan oo kale junior plus aldaha waxa waaye vitaminada dhow ay ku wada qoran yihiin vitamin A vitamin B vitamin C vitamin D idoo ku wada qoran yihiin haddana waxa arkaya inuu vitamin D-ga uu aad ugu yar yahay so markuu vitamin D-ga tabletka ku yar yahay waxaa laga rabaa inaa ugu badisid vitamin D-ga oo sharoobada ah haddii kale vitamin D-ga meeshaas ku jira ma ahan in ku filan vitamin D-ga waxaa loogu talagalay inuu ahaado 10 international units inuu ku jiro waaye laakiin hadda midkan tabletkan waxaa ku jiro 2.5 marka wax badanaa ka maqan waxaan 7.5 dhanaa maqan so marka tabletkan aa siidid
waxaa qasab kugu noqonayso inaa u dhamaystirtid vitamin D-giisa haddii aad rabtid inaa ugu dartid sharoobada yarta oo purple-ka ah oo well baby ku qoran tahay. marka wadamada meel kasta aad ka joogtid adduunka international guidelines-ka waxyaabaha la leeyahay caruurta inay qaataan waa kulli iska mid ay ka wada yihiin, badanaa iska mid ay ka wada yihiin. haddii aad fiirisid meeqa waaye inuu cunugayga qaato ilmahayga inay qaataan, then waa inaa intii aad u dhamaystirtid. so tabletyo badanaa jiro aaday qurux badan yihiin, laakiin markaa si fiican u akhrisid ma ahan exactly wax loogu talagalay ama waxa ka dhiman wixii ka dhimanay marka waa inaa u raadidid, otherwise waa ma fahmino waxay qaadanayaan kaniini aan wax u dhamaystirnayn, marka ma helayaan wixii loogu talagalay inay ka helaan. so muhiim waaye inaad iska fiirisid tablet kastoo gadanaysid. hadda ani waxaan ka gatay tabletyadan oo dhan Holland & Barrett, UK markaad degan tahay Holland & Barrett ama Boots meelahaasaa lagu gadaa. waa very sometimes sale ay ku sameeyaan like way soo raqiisiyaan discount bilaha December oo kale. aniga markaas soo gataa sanadka dhan ana isla marka soo gataa, hal mar lagu soo deliver gareynaa, then ma iloobaysid. marka hadda tabletka markii uu ka maqan yahay vitamin D-ga ama midka sharoobada lagu qaadayo ama midkan oo afka lagu buufinayo, kii markaas available ku ah aad gadan kartaa. aniga waxaan jeclahay badanaa inaan qaato midka afka lagu buufinayo sprayga waa easy because hadduu kaa dhumo syringe-ka then waa dhib inaa wax lagu jiido ma leh. so inkastoo baakado badanaa haystoo kale isticmaali karo, waxaa markasta noo fudud maahano hooyooyin markaan nahay waxyaabahan nolosha noo fududeynayo. so nolosha si kasta oo lagu fududey karo daqiiqad kasta inaa la fududeystaa fiican. so markii aad heshid fursad inaad sprayga gadatid, sprayga kaaga fiican then syringe maanta dhan layska daba wado ama dabool layska daba wado. marka hadda kan waa idin tusaya sprayga wuxuu ku fiican yahay. spraygana sida loo isticmaalayo waa inaad ku buufisaa canka gudihiisa ama carabka hoostiisa, ma ahan afka kala fur oo afka lagu buufinayo ma ahan, waa inaa carabka hoostiisa lagu buufiyaa ama lagu buufiya canka gudihiisa. haddii kale daawada jirka ma gelayso, carabka korkiisa haday saaran tahay jirka ma gelin. so muhiim waxaa ah inaad sidaas ugu buufisid. waa mahadsantihiin. subscribe hanaga iloobin haddii informationkan uu ku anfacay. adigana ha iska iloobin vitaminaadkaaga. videoga kale insha allah waa kusoo dari doonaa aa ugu talagalay hooyooyinka iyo aabooyinka reerka dhan waxay isticmaalaan waay basically. so qof kasta oo u baahan vitamin inay qaadataa fiican, especially caruurta aanan cunaynin qudaarta. maalin hore haddana waa ka hadlay caruurta qudaarta cunaynin in la rabo in caqligooda la boost gareeyo oo in mataqaanaa ana kaa cunaynin qudaarta iyo faruutadoo kale. vitaminaadka haddii ay ka qaataan waxay u noqonaysaa yaroo jirka difaaciisa kor u qaado, immune systemkoodana si fiican kasii dhigta insha allah. marka waxaan rajeynaa inaad fahanteen qaabka markii aad vitaminaad raadsanaysid ama soo gadanaysid dhinacyada laga eego iyo dhinacyada laga fiiriyo. marka hanaga iloobin subscribe, comment isoo reeb haddii aa u baahantaha more information. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.